Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. Maanta waxaan qaadanaynaa wax loo yaqaano adjective ama sifeeye. Waxa uu sifeynayaa shay, qof iyo wixii la mida ayuu sifeynayaa. Sifadu waa inaad ka sheegtid tilmaan ama waxa weeye sifo ama tilmaan uu wax leeyahay in aad sheegtid ayaa waxa la yiraahdaa adjective. Marka sifeeyana waa la yiraahdaa, tilmaamana waa la dhihi karaa sidoo kale. Qofka ku soo diyaariyay ama ku soo jeedinaya iminka waa Muxyidiin Cabdi Cali. bal casharka aan guda galno. Okay, tall waa dheer. halkaana waa ereygii, halkaana waa macnihiisi. Tall waa dheer ama qof hada ama shay hada. Short waa gaaban. Short waa gaaban. Black waa madow. Dad madmadowna waa la yiraahdaa, ashyaada madmadowna waa la dhihi karaa. Black waa madow. White waa cad. White waa cad. Skinny waa caato. Caatadan inta badan waxaa keena nafaqa darro ama waxa weeye cunto xumo ama xanuun. Adiga waa caato qofka jirka iyo waxa weeye isku dhow. Skin waa jirka. Marka skinny haddii la yiraahdo waa qof jirkii iyo lafta isku dhagsan tahay oo caata macna. Slim waxa laga wadaa qof dhuuban. Slim waa dhuuban. Marka qofka dhuuban iyo qofka caatada ahi waxa ay ku kala duwan yihiin. midna nafaqada iyo waxa weeye cunto xumo haysa, midna cunto waa haystaa laakiin si jir ahaan ayuu qaabka u samaysan yahay qofka dhuuban. marka waxaan filayaa waa la kala garan karaa. Slim waa qof dhuuban. Fat waa buuran. Beautiful waa qurux badan. Pretty waa qurux badan sidoo kale. Cute waa qurux badan. Beautiful, pretty iyo cute saddexdaasba waxay la macno yihiin qurux badnaan. Gorgeous waa qurux badan sidoo kale. Ugly waa fool xun. Innocent waa dambi la'aan ah. waa qof aan waxa weeye wax ma oga waxa la yiraahdaa. macnaha qof aan waxba ogeyn ilaahu cadaabin. waa qof aan wax ogeyn macnaha oo xog xaal aan hayn bal yiraahdaa innocent. Generous waa deeqsi ah. waa qof deeqsi ah. Kind waa qof naxariis leh. Sincere waa daacad ah. Happy waa faraxsan. Sad waa murugsan. Bored waa caajisan. Calm waa degan. waa qof aan faraxsanayn murugsanayn. Anxious waa walaacsan. walaac, walbahaar, walwal, warwar waxaas oo dhan waa isku mid. Anxious waa qof walaacsan ama walbahaarsan ama walwalsan ama warwarsan waxa dhanti. Enthusiastic waa qof xamaasad leh. You are an enthusiastic person. waxaa tahay qof xamaasad leh niyo. xamaasad waxa ku jira kind of shakhsi qofnima ku jira iyo dadnimo. Okay, cheerful waa qosol leh. waa wax qosol leh. Funny waa wax shactira waa isku dhow yihiin. Cheerful waa wax shactira waa wax qosol leh. Funnyna waxa weeye waa shactiro ah. waa isku dhow yihiin, waa isku macno dhow yihiin aad iyo aad. Talkative waa qof hadal badan. waa qof hadal badan. waxay ka timid talk oo lagu daray active. marka talkative baa dhira waa qof hadal badan. Strong waa xoog leh ama adag. You are strong waxaa tahay. You are a strong man. You are a strong woman baa tahay. gabar adag baa tahay. naag adag baa tahay. dadnimaad leedahay weye. Okay, marka waxay noqon kartaa wax damiir ah oo qofka spiritkiisa ama waxa weeye ruuxdiisa la xiriira iyo sidoo kale wax physically ama muuqaal ahaan la xiriira way noqon kartaa strongigan.
marka qofku spirit ahaan ama ruux ahaan inuu strong u yahay oo qof waxa weeye yacni aaminaadiisu ay adag tahay waa la dhihi karaa. sidoo kale waxaa la dhihi karaa qof muuqaal ahaan markii la eego xoog laga dareemayo. okay, muscular waa muruqayste ah, qofka waa muruqayste. muscular marka maxay ka timid muscle bay ka timid, muscle oo ah muruq. marka muscular markii yada ama muscular qaabka ugu dhawaaqdaba waa muruqayste. chubby waa wax catuuti ah, inta badan chubby waxaa loo isticmaalaa caruurta iyo dumarka. nin chubby kuma dhihi kadid ama waxa weeye uma adeegsan kadid, xoogaa dee waa laga falxunya qof chubby catuuti ah. ninka jirkiisa uma samaysnaba inuu noqdo waxa weeye chubby inuu noqdo. marka sababta waxaa jira hormones baa ilaahay ku abuuray subxaana watacaala, hormoneskaasa u sahlaya inuu muuqaal ahaan nin u ekaado. waa jiraan dee dad isbedelo waxa weeye deegaanka ama waxa weeye ama qaabka u soo korta ay bedelaan, laakiin inta badan caruurta iyo dumarka ayaa loo isticmaalaa, ayagaasaa noqon kara catuuta, ayagaa noqon kara. thin waa dhuuban wey, thin waa wax dhuuban ama waxa weeye dhumucdiisu ay yar tahay. okay, friendly waa saaxiibtinimo, polite waa akhlaaq leh, edeb leh. polite waa wax akhlaaq leh, honesty ejtaa ma akhrin kadib, ejtaas marka honesty ku dhawaaqasid ma akhrinaysid, waxaa leedahay honesty macnaha ejtaa waxaa leedahay waa silent, waa daacad wey, waa wax daacada. okay, oo qalbigiisa iyo ficilkiisuba ay yihiin wax daacadnimo ay ka muuqato. rude waa edaab xun, waa qof akhlaaq xun ama edab daran. rude waa qof edaab xun ama akhlaaq daran. alright, marka politekaas ka soo jeeda. lazy waa caajislow, waa qof caajislow ah. angry waa xanaaqsan, sensitive waa dul yar, waxaan dhihi karnaa sensitive waa qof nugul, micnaha wuu nugul yahay hadday arrimi soo food saadha ama ahaato wax farxad leh ama ha ahaado wax murugo leh, haddiiba dareenkiisa way bedelaysaa. waa qof sensitive. sidoo kale waa qof dhiifoon baa dhihi karnaayo, wax walba gaararkiisa ka dhacaya waa qof la socdo oo ma ahan qof waxa weye damane iyo waxaa jira qof dhiifanaantu waa qofku inuu wax walba uu yacni u tooghayo ama u xoghayo ama waxa weeye ka warqab. marka sensitive waa wax dul yar ama waxa weeye dhiifnoon. okay, nice waa fiican wey, you are a nice person, qof wanaagsan baad tahay. oh my god, qof wanaagsan baad tahay, you are nice waa fiican wey. nice markii lagu yidhahdo waxa weeye fiican wey, qof fiican baad tahay wey. jealous waa masayr badan, halkaa waaydi baan ka tegay, masar badan baan ka dhigay, acuudu billah. okay, jealous waa qof masayr badan, dumarka iyo raggaba way noqon karaan, weliba ragga khatarsan baa layidhi markii xagga masayrka laga hadlo. war waa arrin iska waxa weeye shakhsiyaade aan ka gudubno. jealous waa masayr badni wey. selfish waa danayste, waa qof danaysta ah oo dantiisa keliya eegta ee danta dadka kale ama waxa weeye waxyaabaha la xiriira aan inta badan fiirin. qofku marka qaarkood danaysta wuu noqon karaa oo inaad danaysta noqotid faa'iida kugu jirto, marmarka qaarkoodna faa'iida kuma jirto. okay, marka selfish anyway waxay noqonaysaa qof danaysta ah oo dantiisa eegta. crazy waa waalan ama waxa weeye u dhaqmaya sida qof waala. you are crazy haddii lagu yidhahdo sida qof waalan baa u dhaqmata. qof fiican haddaa ku tira you are crazy, yacni qaabkii waxyaalihii qof waalan laga filayay baa waxa weeye baa kaasoo fakanaya new. marka crazy waa waalan wey. okay, mean waa xaasid, waa qof xaasid ah. mean markii dadka loo isticmaalo qof xaasid ah la yidhahdaa, laakiinse mean markii xisaabtii waxyaalaha lala aado waxay noqon karaa celcelis bay noqonaysaa, dadka yaqaan baa yaqaan. mean marka xaasid bay noqonaysaa markii qof ama shakhsiyad lagu safiray. modest waa suuban. modest inta badan waxaa loo isticmaalaa dumarka. gabadhu marka ay xijaaban tahay oo wixii diinta iyo akhlaaqda ahaa ay ka muuqato, diin walbaba ha haysatee, diin walba waxay leedahay ama yacni dadka macnaha waxyaalaha ay sheegtaan oo diin ahaan ay u sheegtaan. waxaa jira wax ilaahay soo dejiyey oo diin la yiri oo loo bixiyey iyo wax dadku ay diin u bixiyeen.
marka diinta waxyaabaha Christianity-ga iyo Jewish-ka iyo Islaamka diin loo yaqaana sida saxda ah waxyaabaha kale ee soo hara diin laguma qeexi karo anaga muslim ahaan kuma qeexi karno laakiinse dadkaas ayagu diin bay u yaqaanaan waxooda marka modesty waa sida qaabka ay dumarku u labistaan ayagoo raacaya qawaaniinta diintooda macnaha diintan islaamka gabadha xijaab xirata iyo jalabiib iyo khimar wax loo yaqaan marka modesty qaabka ay u labistaa wax leedahay modesty baa leedahay waa ka arka hadda social media ka khadka googlaha ka bartid waxa arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo dhar xayeysiinaysa oo ma cadaalika xijaaban ba arkaysaa marka waxa weeye waad soo arkaa insha Allah marka suuban waa magaca ama ereyga ugu dhow ee waxa weeye aan u soo qaatay sababtuna waxa weeye diinteena waxa la xiriira diinteena suuban baa leedahay diinteena suuban يعني suuban wanaagsan يعني amrasa wax يعني waxtar noole oo nagu qurux badan oo noo fiican marka suuban saasa ugu bixiyo ereyga laakiin ereyga waa soo bari karnaa hadda heshaana qaybta commentiga ugu la wadaaga akhyaari shy waa xishod qofka xishooda waxa la yiraahdaa shy he's shy ama she is shy waa xishotani waa qof xishota ama yaxyaxa brave waa geesi coward waa fulay way giryale baa loo yaqaanaa Soomaali giryale coward okay fearless waxa way cabsi la'aan he is fearless ama she is fearless waa cabsi male way qofkan ma gabado okay confident waxa way isku kalsoon way I am confident okay markii magac laga dhigo confidence ma noqonaysa laakiin confident waa qof isku kalsoon decisive waa qof go'aanku qaato kama labalabeeyo mana ka warwareego wax la yiraahdo mataqaanaa ka labalabayn inuu qofku yiraahdo ma qaadataa ma iska diisa go'aanku saas oo kale hadii yahay qofka decisive lama dhihi karo laakiin qofka decisive ka wax weeye go'aanka maskaxdiisa ku soo dhacdo oo sax ah u arko hadiiba hoos ka xariiqa marka go'aan leh baa la yiraahdo qofkaas waa qof go'aan leh laguna kalsoonaan karo runtii obedient waa baari ah qofka waalidka oo kale obedient u ah ama adoonka sayidkiisa oo kale obedientiga waa baari ama ilmaha adiga waalid ahaan baari ku ah he is obedient ama she is obedient my children are obedient carruurteedu waa baariyaal maasha Allah ciyaal baari heli kara smart waa grad badan waa qof caqli iyo grad Soomaaliga ereyga saxda caqli waa Carabi ereyga saxda ee Soomaaliga waa grad ama kas baa yiraahdaa qof kas badan oo waxa weeye yani fadhida maskaxdiisa fadhida ilaahay grad siiyay ama kas ku manaystay okay haddii aad soo gaartay gabagabada casharka fadlan de kanaalka hadda ku cusubtahay walaal ku soo biir haddii hore noo joogtayna like and share ha ka laban haddii aad faalo qabto wax nala soo wadaagaysan qaybta commentiga ku soo qor marka wixii aad ka faa'iiday maanta casharkan waa content erey oo sifaynaya dadka haddii aad wax badan ka faa'iiday oo aqoon ka korsatay nugula wadaa qaybta hoose iyo qaabka u isticmaali lahayd halka ka daawanaysa waa hikeedsha mar labaad qofka ku soo jeedinayna waa Muxiidiin Cabdi Cali intaan ayaan ku soo gabagabaynayaa nabad iyo nooli kulanti